waa su'aalo iyo jawaabo. Halkaa waxaan ku haystaa su'aalo iyo jawaabo badan walaalayaal. Inkastoo aan qaarkood u arkay inay yihiin axaadiisa nafs. Kuwa aan u arka axaadiisa nafsiga hataa waxaan soo turjumi doonaa fasirkooda. Hadday lacala ay yihiin riyo, fasirkooda waxay yihiin. Hadday yihiin axaadiisa nafsi yihiinna riyaba maahan. Insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan idiin raali geliyo, inaan cabiro sida aniga aan u arkayo riyada, si anigana dembi iga soo gaarin idinkana aad u raali ahaataan. Walaalayaal inaad ogolaataan ayaan rajaynayaa sida aniga idinku soo jeediyo. In badan waxaad iga ilaawdaan like-ta, dad badan ayaa i daawada, like-tan way yar tahay, like saara. Haddaad igu cusub tahay subscribe saar. Intaasoo rabbi muraadkaaga iyo waxa adiga niidaad ku jira kuugu sameeyaa ajri xasanaadna kaa siiyay. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gabadha ugu horeysa waxay tiri walaashay waxay ku riyootay cambo badan oo bisil. kabacdi riyada dhexdeeda waxaa lagu tusay gurigeeda cambaha ku yaala, geedka cambaha ku yaala oo bislaaday. midaasoo kale inta badan axaadiisa nafsi ay tahay sababtoo ah cambaha sheyga aan jecelnahay waaye aan sugeyno inuu noo bislaado hadduu gurigaba ku yaalo. midaa waxay noqon kartaa axaadiisa nafsi. laakiin haddana gurigeeda ku yaali lahayn oo cambe iskaga riyoon lahayd micnay lahaan lahayd. caadi ahaan cambaha wuxuu tilmaamayaa arsaaqad iyo kheyraad aad u badan. gabar kale waxay tiri waxaan ku riyooday ninkayga oo taleefon ii hadiideynayo, kabacdi bateriga iga lumay, waa raadiyey muddo kabacdi waan helay. ninkaaga wax kuu hadiideynaya sideedaba waa rii wanaagsan. taleefonka wuxuu tilmaamaya laga yaabaa akhbaar wanaagsan inaad si xaggiisa ka maqlaysid, maadaama uu bateriga kaa lumay laga yaaba inuu xoogaa wax sidaa weyn maha. riyada inta wanaagsan ka qaado waayo waxay tilmaamaysaa ficlan wanaag. wallahu yaclam. gabar kale waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo laygu dhahay dhakhtar hibil u tag. waa dadka indhiyarta aasiida. calaa kulli xaal masajka uu dheeriya aan soo koobo. waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo laygu dhahay u tag wax dhir iyo waxyaabahaas oo kale qof ku daaweeyaa, wixiina waa maxay ilmagaleenkii waxyaabahaas oo kale. ficlan hadduu xanuun jiro, riyooyin qaar waxaa jira oon sida xalxiraalo kale heenoo xalis u baahneen. haddii matalan qofka xanuun jiro, xanuunkii ku dawaaqay oo mar walba dhakhtar tago daawo waayo kale, marmar waxaa dhici karta inuu rabbi riyo kuu soo diray oo ku leeyahay meel hibil iyo qof hibil daawadaada hayaan kuugu soo dhiibay, inuu rabbigaa subxaana watacaala sidaa ku leeyahay way dhici kartaa. marmarna waa axaadiisa nafsiga qofka markuu xanuunsan yahay oo dhakhaatiir waxaa ku daala oo mar walba dhakhtar loo tilmaamo waxyaabahaasoo kale axaadiisa nafsi waay. wallahu yaclam. salaad istiqaaro tuko, kabacdi dhakhtarkaad isleedahay ama daawadaada taalaa iska aad. wallahu yaclam. wiilkan wuxuu yidhi xaaskayga waxay ku riyootay anigoo 4 caday siinaya. cadayga lagu cadaysto, cadayga sidiisa gabadha laqaa wuxuu u tilmaamaya xasilooni, degenaansho, nadaafad, raaxat baal. laga yaabaa inaa adiga arrimo aad samayn doontid oo xaaskaagana arrimahaasiit yani farxad gelin doono, raali gelin doono laga yaabaa. midaasay tilmaamaysaa li'ano waxay u tilmaamaysaa xasilooni badan. wallahu yaclam. gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday magacayga oo warqad ku qoran oo 3 dhowr jeer su-aasha igu soo celcelisay. waan kaa raali gelina waayo ayaan dhow waxba ma soo duubin, 4 maalmood ka hor ay ugu dambeeyey aan muuqaal soo dhigo. magacaaga warqad ku qoran hadduu magacaaga saxnaa, يعني مثلا qoraal waxaa jira aan la fahmin oo dirqi lagu aqrinayo, laakiin hadduu magaca si saxan aad u aqrinaysa riyada dhexdeed aadna gabar tahay waa guur. mideeda kale qofka waxaa wanaagsan inuu ii soo raaciyo in la qabo, inuu nin kala tageen, in laga dhintay oo kale, inay gabar kale tahay oo kale. waayo riyada badanaaba qofka waxay u fasirtaa xaalad uu markaa ku sugan yahay. sidaa darteed in badan waa kasoo hadlay walaalayaal. idinkoo qoraalkan soo koobaya ayaad soo raacin kartaa aniga waraahay, aniga waa laga qabaa, aniga ninaa kala tagnay waxyaabahaas oo kale. marka walaalayaal halkaasaan kusoo koobaya. waxaan u mahadcelinayaa dad badan anoona su-aalo ugu soo jawaabin oo iyagoo waxba isoo weydiinin aan waxba ugu soo jawaabin, haddana hadallo fiican iyo commenti fiican iisoo qoro. qaar ka mid ah waan soo qaadan doonaa. dad iisoo mahadcelinaya, dad iisoo duceynayo, dad i dhiirigelinayo. qaar ka mid ah commentidaas oo soo qaadan doonaa, laakiin qofka magaciisaan ka celin doonaa, laga yaabo inuuna raalli ka ahayn. aad ayay u mahadsantihiin. halkaasaan kusoo koobaya walaalayaal. assalaamu calaykum.